safiirka Somaliland ee dalka Sutagay Imaaraadka Carabta Ambassador Basha Awil ayaa safaaradda Somaliland ee dalka Sutagay Imaaraadka Carabta ee magaalada Dubai ku qaabilay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse waxaana qaabilaada kadib uu safiirka Somaliland ee dalka Sutagay Imaaraadka Carabta Ambassador Basha Awil uu shaaca ka qaaday in deeq lacageed oo dhan $100,000 ay shirkadda Fly Dubai ugu deeqday dalka Somaliland gaar ahaan dadyoogii abaaruhu saameeyeen iyo dadyoog ay ku dhaceen cudurka shuban biyoodka waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay safiirka Somaliland ee dalka Sutagay Imaaraadka Carabta Ambassador Basha Awil oo sidoo kalena shaaciyay shirkado kale oo soo gaarsiiyay deeq lacageed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan waxaa runtii maanta sharaf weyn oo ah inuu halkan nagu soo booqday wasiirkeena xanaanada xoolaha Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse waxaan leenahay wasiir soo dhawow xafiiska waxaan kaloo jecelahay fursadan inaan uga faa'iideysano sidaynu la wada soconno dalkii waxaa ka jirtay muddo iminka 2 sano ku dhawaada abaaro ba'an abaaraha soo raha kuwa soo noqnoqonayay alxamdulilah iminka roobkii waa da-ay abaarahina waxaad moodaa inay iminka soo yaraanayaan laakiin kolley dhibaatooyinkeena uga tegeen weli way socdaan waxaananu aragnaa mashaakilaadkeeda iminka inoo bilowday ilaahay insha allah kuwa kooban inooga dhigi doonaa shuban biyoodku ka mid yahay kolley xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siina iyo hogaaminayo waxay ku hawlanadeen doora inay u gurmato oo kaalmayso dadkeeda annagana xafiisyada safaaradaha waxaan lagu soo wargeliyay inaanu gurmadka ka qayb qaadano marka maanta alxamdulilah waxaanu halkan jecelahay inaan ku sheegno inaanu xukuumadda ku wareejinayno lacag $130,000 lacagta $130,000 waxaa ku deeqay 100,000 waxaa ku deeqay shirkadda Fly Dubai oo konton ku deeqday gurmadkii abaaraha gurmadkii guddiga 18 May loogu hortagay abaaraha konton ku deeqday gurmadkan xaaladda caafimaadka ee markii dalka la soo dirsay shuban biyoodka shirkadda Fly Dubai oo ah shirkad imika 2 sano dalka imanaysay suuliyiinteeda markii aan loo kulanay aan soo bandhignay xaaladda iyo baahida jirta runtii waa ayna soo dhaweeyeen si wanaagsanna waa ay u soo gurmadeen aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmasho $30,000 kale waxaa iyaguna gudbiyey 2 shirkadood oo Imaaraati ah oo iyaguna dalka ka shaqeeya labada shirkadood oo shirkadda Abdullah Darwish iyagu dhisayay madaarka qaybta jatiga ah oo la yiraahdo Marine Divers iyo shirkadda kale ee Nile Shamsi oo iyaguna dhisay runway-ga labada shirkadood mid walba $15,000 bay ku deeqday marka la isku soo daro lacagta $130,000 waxaan u gudbin doonaa dawladda oo gudbin doona wasiirka maaliyadda waxaan u mahad celinaynaa shirkadaha Imaaraadka ee ka qayb qaatay dabcan deeqaha iyo kaalmada Imaaraadku kuma koobnay taasoo qura waxay imika joogto hay'adda Khalifa Foundation oo gurmadkeedii abaaraha goboladii abaaru wax leeyahay raashinka u qaybinaysa raashin ilaa 2,500 tan keentay mar walba oo dhibaatada daristana dawladda Imaaraadka waa ay soo gurmanaysay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shacabkeeda sidii maalintii dhaweed iyaguna dhaqaalaha ugu ururiyeen waa dad walaalaheena imikana wax badan isaga ka dhex jiraan aad iyo aad baan insha Allah iyadana leenahay ilaahay xasanaadkeeda hal idinka abaalmasho wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna geestiisa uga mahadnaqay dadaalka ay safaaradda Somaliland ee dalka Sutagay Imaaraadka Carabta ay ka wado safiirka Ambassador Basha aad iyo aad baad soo dhaweynta ugu mahadsan tahay waxaa kaloo kaaga mahadnaqayaa dadaalka faraha badan ee xafiiskan ay safaaradani intii ay shaqeynaysay ay dalka kusoo kordhisay waa xaqiiqo qof Somaliland dariibo uu ogyahay duniduba in kartida muujisay xafiiskaaga iyo adigu
inuu keenay xidhiidhka imaaraadka aynu iminka la leenahay oo noqday dowladda aynu isugu dhownahayba aynu wax wada qabsi wada yeelanayno shaqadii safiir lahaana bilmacna alkalima waad qabatay waana u qalmaa xafiiskaaga waana ku bogaadinayaa maadaama ay tahay inuu safiirku dalkiisa u sahan tago usoo xodxodo usoo dhaweeyo dawaa'idka iyo sharaa'inka iyo dadka maalgashiga sameynaya iyo dowladaha uu markaa agtooda joogo intiiba waa la arkay oo xidhiidhku wuxuu noqday xidhiidh la taaban karay maanta tan abaaraana aad baad ugu mahadsan tahay. safaaradda somalilan ee dalka isutaga imaaraadka carabta oo hogaamiyo ambassador baasha cawil ayaa tan iyo intii ay ka yegleelay dalkan isutaga imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada Dubai isla markaana ambassador baasha cawil uu majraha u qabtay horumar ballaadhan ku soo kordhisay dalka Somalilan kaasi oo laga dareemay geyga caalamka. Cabdi Naasir Khalid Saciid wararka Home Cable TV magaalada Dubai.